kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idlahaantiinba inta aanan barnaamijka bilaabin ka hor waxaan ka codsanaynaa daawada inaad subscribe saarto isla markaasna aad like saarto gambaleelka yarkaana aad rukumato si barnaamijyadaanu halkani soo gaadhna ay kuu soo gaadhaan isla markaa ay soo galaan halkani waa kanaalka xogta geeska oo aad kala socotaan arrimaha fanaaniinta oo ay ku jiraan taariikhaha fanaaniinta iyo fankooda ku soo dhowow barnaamijka maanta. maxaad kala socotaa daawade taariikhda cibaaqaadashada mudan ee uu soo maray fannaankeena weyne Qamar Suugaani balse ma ogtahay in Qamar Suugaani uu ahaan jiray buwan heesaha sameeya isla markaasina ku faray raystil laxanka iyo heesaha balse ma ogtahay hees lagu inkiray darteed inuu fanka u soo galay isla markaasina uu noqday nin weyn 8 bilood gudahood kuna dhaafay bilayar gudahood rag 10 sano ku jiray fanka. marka hore amaan ummadda Soomaaliyeed aad baan salaamay. marka labaad waxaan halkan aad iyo aad aan ugu cambaaraynayaa aadna aan ugu dhaleelay fanaan da'yar oo fanaan soo koraya oo aan hadda ka hor heesiyay deedna fankiisii iyo fanaannimadiisiiba meel kaga dhacay heestan siiyeyna ku qoray qof kale waxaan kaygii qof kale ku qoray dadnimadii fanaannimadu lahayd iyo shakhsiyaddii fanaannimadu lahaydna meel kaga dhacay waa fanaanka Maxamed Fiid. heesta waxaan siiyey la yidhaahdo darajo mala caashiquna hadduu calafsano duroo burjigu uu doorsamee durhaad wax kaga lumiya ilow dakhaarada qalbiga. wuxuu ku qoray abwaan kale waxaan kaygu wuxuu ku qoray fanaan kale maxay ahaydey fankeena meel ku kaga dhacay abwaanadiina dee aamini maayaan hadda kadib. midda kale abwaanadu waa gunaad waxooda laguma habeeyaama laguna saamo magaca oo qura ayay heesta ku leeyihiin. ninka magaca iyo oo qura ku leh haddii magaciisina laga reebo oo waxbaa ka dhacaya wan abwaane heesta aniga ayaa iskale maanta iyo badiba isagana magaciisii iyo muuqiisii uu iska dilay iyo fanaannimadiisiiba aadna waan ugu dhalinsanahay. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. daawadayaal adduunyadu waa harka labadiisa gelinaya tani waxay ahayd shalay ayaama yar ka hor markii uu soo galay fanka waana Qamar Suugaani oo ay ku dhacday qiso xanuun badan kadib markii heestii uu sameeyey magaciisii laga bedelay isla markaasina nin kale lagu qoray xataa laxankii loo qoori waayey in lagu qoro magaciisa. waxaa qaaday heestaas fanaanka Maxamed Geedi waxaana lahaa ereyada iyo laxankaba Qamar Suugaani sidaasoo ay tahay haddana wuxuu waayey in magaciisii oo keliya lagu qoro. haddana waa mid ka mid ah fanaaniinta ugu caansan looguna jecel yahay geyga Soomaalida iyo midka ugu heesaha macaan uguna laxanka macaan oo looga soo doonto Yurub laxamadiisa. ninkii saas loo galay wuxuu noqday midka loogu jecel yahay isla markaasina loogu dhageysiga badan yahay geyga Soomaalida isagoo kala wareegay kuwa 15 sano oo juruura ku jiray fanka. bixitaankii Qamar Suugaanina waxaa qayb weyn ka qaatay isla markaasina aan leeloobi karin fanaaniinta qurbaha oo ay ka mid yihiin Guule Simba iyo Safwan Halac kuwaas oo heestiisan iskaga soo duubay TikTok isla markaasina faraha bulshada ku faafiyay sidaasna lagu bartay Qamar Suugaaniga cusub iyo ninka dunida qabsan doona ayamaha soo socda oo ay ka miisoon ka bixiyeen. adaa dumarugu sito tasfiirtaadan dayaxa jeclaystay inaan dul sudo waxaan ka cabsaday dartaa inay xidiguhu daman intaan dure xididadii waduway xinjiraha qalbiga intaan dure xididadii waduway xinjiraha qalbiga
adaan kugu daabaco waxaan dagalkaaga dhigay halkii ugu dorwacnay dawooy magacaaga bilan dhulka damcaynan ku qorbo cilmiyo samadan ku day ku daabakaan iskeli daruur qarisan ka baqay. intaasi kadib qamar sugaani waxaa qabsaday dad warxumato shiila islamarkaasina doonayeen in magaca bulshada uu ku dhexleeyay ay baabiyaan. waxay soo maleegeen arrimo qorshaysan islamarkaasina ay la beegsanayeen qamar sugaani. intaasi kadib arrimahaasi oo dhan way fashilmeen maadaama aysan ahayn kuwa sal iyo raatoon aan lahayn oo la soo maleegay islamarkaasina dad isaga cadow ku ahay ay soo maleegeen. arrimahaasina waxaa ka mid ahaa inay diinta ka saareen islamarkaasina ay ku sheegeen in israa'iiliya ama yahuudiya ama maasuuniyadda galay islamarkaasna iyaka la shaqeeya oo iyaka ka mid ah. haddaba waxaa jiray iyaduna inay yidhaahdeen gabadh ayuu uuru yeelay islamarkaasina wuu uureeyey markaasina ka baxsaday oo jigjiga ayuu tegey. arrintaasna way beenowday oo ma aysan noqon sidii la filayay. haddaba daawadayaal waxaan ka cudur daaranaynaa inaan taariikh nololeedkiisa qayb ka mida ka tagnay maadaama aanaan qoyska iyo arrimaha la falgeli karin islamarkaasina aanaan ka hadli karin. ogbaad aragsan oo ay isfureen muddo dheer kadib ka hor islamarkaasina uu guursaday nasiim sooraan oo hadda xaaskiisa ah. waxaanu idinka codsanaynaa inaad kanaalka subscribe saartaan islamarkaasina aad like tayarkaa saartaan gambalaalkan kubataan si fiidiyooda dhinacan aan soo dhignaa islamarkaa ay soo galaan baa idiin soo gaadhaan. daawadayaal waa mahadsantihiin. سلام.